weynaa ee dhex maray xulka qarankeena Soomaaliya 17 jirada iyo xulka Ethiopia ayaa kusoo dhamaaday 1-0 ee guul ku gaartay xulkeena qaranka Soomaaliya iyadoo goolka qura ay ku badisay xulka qaranka Soomaaliya oo shaqada soo taabsiyay xidiga lambarka 22aad u qaatay xulkeena qaranka Soomaaliya ee lagu magacaabo Cabdi Xafiid xulkeena Soomaaliya ayaa heshay 3 dhibic ugu horeysay tartanka 17 jirada iyadoo ay dhammaan Soomaali u soo yeetay farxad iyo guul warjinina inaan koobka soo qaadi doono waliba laga soo deji doono caasimadda Muqdisho ee Soomaaliya guul alla xil walba horumar wanaagsan oo idin rajeynaya waxaa tiin ciyaartoy da'yar ah waxaan leeyahay horumarka weyn ayaan idin rajeynayna iyo golahayaha kartida iyo awoodda leh ee golahaye loo magacaabo